السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal magacay waa Maxamed Soomaali. Ramadaan mubaarak, Ramadaan saciid, Ramadaan kariim ayaan hawadeeda ka leeyahay. Kullu caam wa antum bikhayr. Waxa mahad iska leh Allahi noo suurtageliyay in Ramadaankan uu caafimaad nagu soo gaarsiiyo. Alxamdulillah, summa alxamdulillah, summa alxamdulillah. Kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo 10 ku saabsan kombiyuutarada. Maanta waxaan baranaynaa 10 ku saabsan sidii aad passwordka uga bedel lahayd kombiyuutarka adigoon garanaynin passwordkii hore ee kugu xirnaa. waxaan u maleynayaa inay tahay qayb kamid ah hacking-ka ama gargareynta kombiyuutarada. sidaa daraadeed waxaan ka afaafinayaa in aad kombiyuutarada dadka u isticmaalin ee aad cilmi ahaan kaliya u barato. runtii mar labaad mar saddexaad ayaan ka afaafinayaa arrinkaasi. ila soco casharkeena ayaan guda galinaay. marka ugu horeysa talaabada ugu horeysa ee qaadis waxa weeye kombiyuutarka markuu saa kugu soo furan yahay waxaad imanaysaa halka ay ku qoran tahay this PC. hadii ay ku tahay my computerna waa magac waa arin kale. this PC ama my computer hadda say ku tahay ayaad imanaysaa, right click ayaad oranaysaa. kadib waxaad ka sii xulanaysaa halka ay ku qoran tahay manage. markii aad tiraahdo waxa ku soo baxaysa shaashada caynkan oo kala. markii aad halkan marayso ayaad waxaad ku sii dhufanaysaa local users and groups ayaad ku dhufanaysaa. kadib waxaad ka sii xulanaysaa users ayaad ka sii xulanaysaa. markii aad users joogto waxaad imanaysaa administrator meesha ay ku qoran tahay aad imanaysaa, right click ayaad oranaysaa. waxaad oranaysaa marka set password. waxaad ka sii xulanaysaa halkan ay ku qoran tahay proceed. kadib waxaad gashanaysaa passwordkaaga cusba. current password kuma weydiinayo insha Allah. waxaana ka dhigayaa hadeer Soomaali ayaan ka dhigay. waa kan marka okay ayaad oranaysaa. wuxuu ku yiri passwordkaaga waa la setgareeyay, waa la fariisiyay, waa la hagaajiyay. marka hadeertan waa ka ayna 10ka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. marka waxaa jira habab kale oo loo isticmaalo in kombiyuutarkaaga magac laga bedelo adigoon garanaynin current password ama passwordkaadii hore. sidaa daraadeed waxaa loo isticmaalaa shaashada madow ee kombiyuutarka. hadii aad doonaysaan inaan 10 ka soo sameeyno isagana waxaad noogu reebtaan qaybta hoose ee faallada. fadlan hadii aad muuqaalkan ka heshay ayna tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato channelkeena, waxaan ka codsanaynaa in aad channelka subscribe saarto siina share gareyso videogan. fadlan ku xirnow, waa noo muhiim ku xirnaanshahaada. run ahaantii mahadsanidin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.